sinayno dadku kala wanaagsane wadanigan dulqaadiya deeqsinima ku caane loo daayo waa kee daljiir waa ismaaciil daljiir waa ismaaciil daljiir waa ismaaciil sinayno dadku kala wanaagsane wadanigan dulqaadiya deeqsinima ku caane loo daayo waa kee daljiir waa ismaaciil daljiir waa ismaaciil daljiir waa ismaaciil إسماعيل دايرتي وحبرتي إسماعيل وحيدادين إسماعيل تشوحن كسيدنا دعي السنة إسماعيل إلا الليلة تشوحن كسيدنا دعي السنة إسماعيل إسماعيل دايرتي وحبرتي إسماعيل وحيدادين إسماعيل تشوحن كسيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير. السلام عليكم رنونو. أنا وإيجرنيسي. نيكي ماشي بيها كسوفي جيران. walaalkayna kiisa hadda waa maqlayseen cabdullaahi meeshan cidii dhashay inuu yahay buu sheegay hadda meel dhaliya ay joogtana laguma qaado ana sidaan qiyaasa marka waxaan ogahay makuu sheegaa buu yidhi nin food iyo muuse waxaan u malayn dhaqan ahaan wax isaga dhow ma laha ana sidaan dareensanahay marka taas sababteeda kolley iyo kolley ani waan baahanahay adna waad baahantay ani waan baahanahay oo waan kuu baahanahay adna waa ii baahantay marka qabiilna waxba ma tarahayo waxa la joogo waa adduun dhaqanka unbaa wax kastoo muhiima marka sidan isu kaa naxaanto ani waxay ila tahay aan wax isugu muujinno waan kuulisiya iyo hambe walaalayaal waxaan u malaynay in badan awada kuma aanan dhigin siyaasa iyo gambar lagu tartamay iyo wax bal maanta maalinba maalin unbay amaadaya maanta bal lagu daya kol wax kale haddii uu ismaaciil qaban waayo gaari booyad oon ba idinka idinku xamaalo kol uu noo keeno oon idinku wadaagiyo anaana idin waraabin balaana waay meeshan siduu kuu sheegay walaalka annaga dhibkeeda waa biyo oo waa biyo waa dhulka aniga aan ka shaqayn jiray waxaan u malaynay walaalow haddii ilaahay meeshan wax kugu daro meelaha aniga aan qalbiga ku hayo in aad culays saarto oo bal si kastaba ha noqotee faras cad iyo faras udug waxaad bulshada nuuno iyo kuunyada badiga walaalow dadka annaga waxa dhibo waa oon wax isi laguguma dhibahayo laakiin waxa lagugu dhibo waa oon marka walaalow meeshan hadduu ilaahay risiq kugu daro meeshan il rixin inaad ku fuliso adigay ku taallaa wasalaamu calaykum tolka sharafta la meeshan isugu imaade
maamooyinka mudanayaasha odayaasha dhalinyarada asalaamu calaykum salaan ka bacdi maqsuudka meeshan aan u maanne annaga waxaan nahay qoys muuse ibraahim la dhaho waxaan soo qaadnay balanbala dhankeeda wiil la dhaho ismaaciil caraale oo aan wadnaa wiilkaas isagee kursigii waxaan la rabnaa mp balanbala intaan weli kursiga aan soo qaadin muuse ibraahim waan fadhiisanne dhalinyarada waan fiirinne meel haddii la geynayo nin waa inay horta ninka asagee la soo sigsigayo soo saa maahan jirin nin aanan soo sigsigaynin ogaadeen uma keenayno cawdaqna uma keenayno ogaadeen markaanaha xabadxabadoo maaragta dhulka uu iska jooga asaga wuu degan yahay laakiin canuniga waxaa waya cawdaq soo saa maho sidaa markayto wiilkan waa wiil aan soo sigayne wiilkan waa wiil aan dhahna cawdaaq waa horjeyn kartiin mudana wuu noqon karaa mudana markuu noqdana muuse ibraahim keli uma noqonay cawdaaq buu mudana u noqonay baahida cawdaaq cunug bay lahateen ama maaragtay uu tiro yaan u soo qaadin waan ogsoonnahay dhalinyaro fara badan oo cawdaaq inay taagan yihiin gulubku iska warqabaa annaga haddaan muuse ibraahimna wiilkanaan wadannaa cawdaaqow wiilkanaa idinkeenna maan reer nunow khaasatan reer nunow iyaan u keennay wiilkan maan wafdi ballaaran baa la socdaa oo muuse ibraahim gul maaragtay gadaashaydana waa la hadli doonaa maqsuudka hadda meeshan maanta aan u hormaray oo waxaa way wiilkan inaad nala qaatiin reer nuno waxaan idinka codsanaynaa inaad wiilkan nala qaatiin wiilkana magaciisa waxaa way ismaaciil caraale sidaan ku celiyana inaan ku sii celceliyo mar rabiya sidaan filayno soomaali waxay tiri ama ugub gado ama aqoon gado weli maamul muu soo qabanin إن شاء الله تعالى المامل كله أفلح كني وعوض كل الجو ما أنا تعاني برار نقطان فينا إنه كان نقطة إنه حاجة بيع واحد كلا قطان فينا حاجة أمنية ما أنا إنه واحد كلا قطان فينا وحن فينا بيرة إنه واحد كلا قطان وبيع دنار إن شاء الله تعالى ومنا كذا اليوم ما أنا ما دوين بدل ما أنا يعني ما أنا فينا سيدا أوجد وقت يا جماعة سئ رج مارك إن شاء الله هنا دمبينا ويقدم بينا عدسيجا وحاول إلى الويل كما سوق هذا المسافر عند الدين لنولو أدرك أتينا عصرنا هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. hadalka aan hadda ay tahay soo kala hadli lahaa laakiin meeshan uma kala inaan amaartaan u daayo ma rabo waxaan idin sheegay ummadan socoto oo meeshan socoto oo ka imaatay gaaris aniga qoyska i dhalay waa kan haddii aad maqasheen dulmi haaroon intuu ka dhashay ciduu ka dhashay waa kan markaan waxaan u istaagay in aan codsigayga reeabtigay aanan kala harkanin oon weydiiyo oonan ka gaacsanin intaasaan horta u istaagay reeabtigaada waayo badan baa meesha soo maray meeshan maajoolada idinkaa degan waxaa tahay wax la yidhi revolution dhaqaalihii wadooyinka biyaha isbitaallada iyo beeraha lagu shaqaynaya dhammaan waxaa lagu wareejiyay goboleedka hoose marka insha allahu waxaan jecelnahay haddii meesha nagala soo doorto anigoo la shaqayn doono dowlad kasta oo noo soo gasho oo maaragtay dowlad goboleedka noo soo gasho nin alla ninkii loo soo doorto ilaahay uu maaragtay u kasbo in aan caawiyo lana shaqeeyo si dhaqaalaha oo maaragtay ay dowladda centraalka ay ku dhibto dowladaha county aan ooga soo dhicinno si ayagana ay shaqadaas ku qabtaan
soo sheegeen dhalinyaradu programyo badan baan u haynaa waxyaalaha aan maaragtay hadda doonayno waxaa ka mid ah meesha la yidhaahdo balambala waxay leedahay 5 ward bay leedahay waa Saankuri ward oo meeshan ka tirsan Saaqa ward balambala ward Jarjara ward iyo Daanyara ward aniga barnaamijka aan wato oo ii qoran oo rabo inaan ku shaqeeyo waxaa weeye horta ward kasta sidii hadda Saankuri ward oo meeshan ka tirsan tahay waxaan rabnaa inaan ballan qaadno haddii ilaahay ku soo noo guudeeyo in horta meel walba oo headquarter u sabka maxaa la dhahayaa ward kasta sidii hadda Saankuri ay fadhiyaan gaari biyoole iyo maaragtay gaari ambulance sababta Saankuri fadhiyo wuxuu ka shaqeeyay kuwayadan oo dhan wixii dhibaato oo biyo maarta looga baahan inuu biyo ka soo qaado Saankuri kuwayadan oo dhan gaariga yaalo meesha la yiraahdo Saankuri oo yaali doono shidaalkiisana xafiis meesha ka furan oo ka qaadan doono oo gaari fiican waxaa kaloo meesha yaali doona gaari la yiraahdo ambulance oo gabar kasta oo ku xanuunsan ama hangaralaha qaniino ama abeesaha qaniinta ama uur ha aato hadday tahay waxaan doonaynaa every ward kasta inaan xafiis MPga uu leeyahay uu ku yaalo xafiiska asaga oo la geen doono dhibaatooyinka dadweynaha ay ka tabanayaan MPga iyo constituency managementkada ma aha balambala constituency officekeeda inuu gaarisa ku yaalo ayadana maaragtay waxyaalahan ugu hore oo talaabada hore aan qaadno every ward kasta waxaan ku yeelan doonaa xafiis u shaqeyn doona dhibaatada wardka dadka degan oona kaafin doona waxaa kaloo joogi doona qof matalayo reer meeshaas hadday Saankuri taho Saankuri maxaa la dhahay ward qof ka socdo oo dhalinyaro ama dumar ha ahaado ama wiil ha ahaado MPba inaan la raadinin oo telefoonkiisa wuu xirta iyo wuu dansada iyo gurigiisaan hortaagnaa inay dhicin sababtoo ah haddii dadweynaha wixii xafiiska ay shaqo ka rabeen ay ka helayaan nin MPga Nairobi joogo maxaa loo raadin ma jirta qof dhalinyaro meesha joogaan shaqo siinayna asagaa qoraya dadka baasariga laga bixinayo asagaa qoraya wax alla wixii dhibaato magaalada u baahan tahay isagaa MPga la soo xiriiraya wax alla wixii adeegna isagaa maaragtay yaa fulina wax ilaahay abuurto MP Nairobi joogo oo telefoon maalin walba dansanaya loo raadiyo warkeeda ma jiray ani ballantaas idinka qaadi waxaan rabaa inaan idiin sheego sida la sheegay min dibadaha wax ku soo bartay sababta ugu weyn oo wadamada dibadaha ay u horumareen waxaa weeye wax alla wixii shaqo oo dawlad lahayd qof lama raadiyo xafiis la raadiyo haddaan xafiis Saankuri idinka furo mid Saaqa idinka furo mid balambala idinka furo mid Daanyara idinka furo iyo Jarjara aniga maxaa leeyahay ma sababa in la raadiyo loo baahan yahay xafiiska asaga ay ku jirtaa boodhikaara ay ku jirtaa Saankuri ward so haddii Saankuri ward xafiiska boodhikaara laga dhigayo ama Saankuri laga dhigayo dadweynaha ka tashanaa insha Allah Saankuri ward inay watabuza ay ambulance yaali doono Saaqa ward watabuza oo biyaha ilaa iyo maaragtay goolicha inay la geen doono meesha la yiraahdo balambala watabuza ay yaalo inuu aadi doono ilaa iyo maxaa la dhahay dowlad iyo ashadin inay biyaha meesha laga qaadi doono midka yaala Daanyarana ilaa iyo waxa uu geen doono insha Allah marka hadalku waxaan ku soo koobi haddii aad rabtaan waxyaalaha idin sheegay in dab laga dhigi karo iyo in kale fursadan kaliya u tijaabiya 5 sano anaga idinku soo insha Allah arrinta biyano MCA kala xiriirayna magaaladan ilaahay baa horta yaa maaragtay inuu ugu deeqayaan ilaahay ka bareeyna laakiin waxa idin sheegi aniga waxa idinka ballan qaaday wax xaq oo wadankan leeyahay oo dhumaayo maadaama takhasuskayga uu yahay inaan dawladda doodo sharci aan dejiyo qof garyaqaan aan ahay oo aan ku soo takhasusay shaqo kale aan qabanin xoolo aan duraynin dad aan duraynin macallin iskuul aan ahayn oo joog ka qaadayn shaqada ayada ay dhigteen inaan si toos ah soo bixin doono oo dadkii doonin waxaa maqashan nin oo Turkana ayaa markii doodo dhan dhamaatay wuxuu dhihi jiray what about Turkana baarlamaankan balambala ilaa hadda qofka dooda arrintada lama sheegin waa ka doodi xaqiinaan soo bixini waa la shaqeyni dumar rag iyo dhalinyaro wax alla wixii maaragtay duruufiina waan ka shaqeyn insha Allah nin walba MPga u tahay arrinta uu sheegi doona laakiin aniga sayda waa shaqo khaas ah oo marka hadalkan ka bixi waa maadsantihiin soo dhaweyntaan soo dhaweyseen sida idin sheegnay maanta ay arka ay barta dadka ay aqoonsay laakiin kuriin ana soo doonana idinka bari insha Allah.
mahadsan